بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal aan badaawadyaal ku soo dhawaada idaacadda codka Djibouti. Caawa halkan waxaan iga soo tabinaynaa haddii alla yiraahdo barnaamijkii dabagalka ee LVD. barnaamijka dabagalka waxa haddii alla yiraahdo aan ku eegaynaa musuqmaasuqa ballaaran ee Djibouti hareeyay ambooleyte xukunka Djibouti muxuu ku dhisan yahay. waa su'aal run ahaantii aan doonayno dadka reer Djibouti inay caawa dhagtooda ay u furaan waayo in badan ayaa su'aalo badan la iska weydiinayay Djibouti xukunka ka jiray muxuu ku dhisan yahay muxuu yahay bar badan indhaha ayaa iska qabtaan oo ay yiraahdeen waxa ay mucaaradku ay ka sheekeynayaan waxba la isdaba marayaadu wax badan kama jiraan ambooleta dad badan waxay u noqotay waxa la sameynayo wax caadi ah inta ay iyaga naftooda ayna soo gaarin. waxa weyn magaceega waxa la yiraahdaa khadra maxamed awaale solo khadra dhibaato ayaad ka soo gaadhay wadankii Djibouti shaqadaadii arrintan aan maanta haddii alla yiraahdo halkan aan doonayno inaan iniga sheegno abo aan niga tusno ma aha wax aan ku tirikuteenaya ma aha waxaan anagu aan sameynayno ma aha wuxuu mucaarad maaragtay aan ku hadlay oo soo qaadanay waxa weyn arrin taabatay amba ku dhacday dad noo sheegay inay mucaarad ay waxba ayna ku lahayn oo intoodii horeeta ay ahaayeen dad raacsan xukunka Djibouti laakiinse iyagu aanan doonayn waxyaabo naftooda in lagu sameeyo ambooleyte waxaynan raalli ka ahayn in la soo dhexgasho dadkaas waxaad ka maqli doontaan afkooda sida loola dhaqmay ayaad ka maqli doontaan laakiinse annagu maadaama aan nahay idaacad waxaan isku eegnay intaanan barnaamijkan aan tabin ambooleyte aan soo bandhigin inaan markaan maqalay xogtii iyo waxay iyagu naga yidhaahdeen inaan baadhno oon isku dayno inaan dadkii eeddu ay ku socotay inaan si toosa aanu la xidhiidhno aan wax ka weydiinno waxyowga lagu eedaynayo inay wax ka jiraan iyo in kaleet waayo waxbaa jira adiga imika ku cad amba qofu si kugu sheego laakiinse haddii qofkii kaleete ee maaragtay waxbuu sameeyey la yidhaahdo aad wareysatid si kaleete uu kugu sheegi karo waxaan isku eegnay haddaba inaan la xidhiidhno dadkii eeddu ay ku socotay nasiib darro waxaa noo suurtoobi weyday inay dadkaasi ay noo soo jawaabaan ambo ayna siiyaan waraysiyo amba waxay ku burinayaan eedaha lagu haysto intooda badan telefoonada ayay nagu gooyeen in badani noomay soo jawaabin maylalkii aan u darnay kamay soo jawaabin waxaa ku soo baxaysa markaas in ay dadkaasi dembiga lagu eedaynayo inay guteen ayaa ku soo baxaysa laakiinse annagu idaacad ahaan dadka reer Djibouti ayaan hordhigaynaa iyaga ayaa arrintaas goynaya arrintan waxa ay si toosa ay u taabanaysaa ay u saameynaysaa wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka ee Djibouti ay wasiirka ay ka tahay Dr. Hibo Momin haddaba Hibo waxay ahayd gabadh mutacallimada gabadh run ahaantii annagu dibadda aan ka joogno aanu han weyneyn markay hawsha soo fuushay oon lahayn kolleyba Hibo ma qaadi karayso ambooleyte waxbay ka bedeli amba waxbay ku dari amba way ka bixi imikadaaba
waxaase arrintani ay na tustay sidoo ay hibo ay ugu dhex milantay systemka amba xukunka Djibouti ka jiray horteed inay si fiican ay ugu dhex milantay waa nasiib darro in qof wax bartay oo halkaa joogi uu maaragtay ogolaado amba ku dhex milmo habxumida ambooleyte xoolaha dadweynaha ee la boobayo inay ku dhex milanto waan ka xunnaa arrintan haddaba doctor hibo waan doonaynay inay rayigeeda ay na siiso inay ka jawaabi karto diyaarna waxaan u nahay inaan waqti kaseete aan codkeeda ambooleyte haddii ay doonayso inay arrintaa ay ka jawaabto inaan u furan tahay LVD annaguna aan noqon doono maaragtay dee aan ciyaari doono habkayga nagu yaqaanay ee wariyanimada aan wax ka weydiino waxa arrintani ay saamaynaysaa oo kaleete wasaaradda cadaaladda ee Djibouti oo afkooda ay nooga sheegeen amba xogtii ayna siiyeen ay sheegayso in ay wasaaraddaasi sida ay u hadashay inay ahayd mid tilmaamaysa sida xukunka Djibouti uu u yahay xukun ku dhisan isdabamarin xoolo dadweyne afkooda ayaad ka maqlaysiin sida ay u leeyihiin wasiirkii ayaa afkiisa nagaga yidhi maxaad ula cuni weyday odaygii alxasab hadda ma ku noqdo islaantaadu way khaldantay buu ku yidhi waa waxaan iga soo idhow islaantaadu way khaldanto lacagtay cunayaan way la cuni lahayd way alxasab haddoon igu noqo waa wasiirka justice-ka cadaaladda ee Djibouti way intaasoo keli lahaatay hadalkaasoo keli lahaatay wasiirka wuxuu ku mudan karayay in xabsi ambooleyte in hawsha laga xayoobiyo ay ku mudan haddii waddan caadiya uu yahay Djibouti waxa kaloo halkan aad ka arki doontiin in dadkaas oo ni sheegayo ahaa dad reer Djibouti oo run ahaan siyaasadda intooda badani ayna xoog ayna ugu dhexgelin iyagoo lahaa meelaha lagu soo urursho dadka dawladda u shaqeeya barkooda intooda badan qasabka lagu geenayo inay ahaayeen kuwii joogayay oo hawlo badan inay ka qayb galeen oo dawladdu ay sheeganaysay amba xukunka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu sheeganayay inay dadkani ahaayeen dad iyagu u dhaganugul oo tagayay ka qayb galayay wax ku darayay jeclaane inay xukunkaasi uu waaro amba uu sii socdo jeclaane laakiinse waxa u caddaatay dadka kaleete reer Djibouti maanta iyaguna waa inay indhahooda ay ugu caddaato qof kasteeto oo reer Djibouti qoladu doona ka soo jeedo cidoo doona ahaado in haddii sida xukunkani uu dhaqmayo haddii u dhaqmi waayaan inay noqon doonaan waxa lagu tilmaamo mucaaradka Djibouti waxa ay ka dhigan tahay adduunyada kale macna kale u leeyahay mucaarad markaad tiraahdo waa qof diidan habka aad wax u wadi oo ka horjeeda laakiinse Djibouti macnihiisu waa maxay mucaarad Djibouti markaa uu madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle afkiisa uu ka sheegay waxay ka dhigan tahay qof dhagar qaba ah ayay ka dhigan tahay dhinaciisa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle mucaarad baan ahay haddaad ka tiraahdid waxa weeyaan qof dhagar qaba ah adduunyada kale sida ay u matasho ayuu isagu u fasilanayaa mucaarad isaga dhinaciisa waa qof dhagar qaba ah waa qof diidan jiritaanka waddanka Djibouti mucaaradka dadka kuwa kaleete madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle garab joogane
waxay u fahmaan qofka marka la yidhaahdo waa mucaarad in uu yahay qof ka horjeeda jiritaanka idili Jabuutiba waayo iyagu waxay isku xidhayaan jiritaanka Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo iyagoo isku mid Jabuuti iyo Ismaaciil Umar Geelle waa isku mid marka haddii aad tiraahdo mucaarad baan ahay waxay ka dhigan tahay waddankayga waan diidanahay ka dhigan tahay iyaga dhinacooda laakiinse arrintan waxaad ka fahmi doontiin qofka mucaarad Jabuuti la yidhaahdo waa qofka waddankiisa jecel waa qofka diida xoolaha dadweynaha la isdaba marinayo waa qofka diida xaaraanta inuu cuno qofkaasi dowladda Jabuuti ma aha mucaarad waxa leh dowladda Jabuuti ayaa dadka reer Jabuuti ka dhaadhicinaysaba in qofkii saxda ahaay uu yahay qofka mucaaradka qofka khaladka taageersan amba khaladka beerka u siifane amba maaragtay sii biiriyane inuu yahay qof xukunkan maanta Jabuuti ka taliya qof taageersan ma aha mucaarad waxa kala saaray dadka waxa kala saaray waxa weeyaan xukunka dowladda Jabuuti maanta ka dhisan ayaa kala saaraya oo qofkii xun qaadanaya dhinaciisa biirsanaya beerka u fidaya sii biirinaya qofkii daacadda ahaa amba qofkii diida xaaraan inuu cunane la dagaalamaya ku tilmaamaya inuu mucaarad yahay ku tilmaamaya qof inuu waddankaba ku noolaado inuun ahayn ku tilmaamaya maxay nii soo baxaya dadka reer Jabuuti waxay nii soo baxaya xukunkan Jabuutiba inuu yahay waxa wada isdabamarsiga marka uu leeyahay waan la dagaalamaya waxay ka dhigan tahay waan sii beerinayaa marka uu leeyahay dad baan ku xidhaya waxay ka dhigan tahay dadkaasi waxa ay diideen waxa weeyeen musuqmaasuqi ayay diideen isaguna taas ayuu ku xidhaya waxay nii soo baxaya haddaba dad inay maanta ku xidhan yihiin waxbuu isdaba mariyey waxbay dhici karaan laakiinse waxbuu qofkaasi diiday ayaa meeshii ka iman karta arrintan markaad dhegaysatiin waxaad fahmi doontiin waxaa lagu sheekeeyo oo dhan inay tahay dhinaca kaleeta qalibkeeda inay tahay marka la soo marayo serviisyada la leeyahay waxaan eegaynaa musuqmaasuq inuu ka jiro waxay ka dhigan tahay waxa lagu beerayaa musuqmaasuq baa lagu beerayaa sida ay wax u sheegayaan maahina dowladda Jabuuti maanta wixii ka dambeeyay waxaad u fahmi doontiin inay tahay dhinaca kale u fasiro waxbaan qabanaynaa markay leeyihiin waxa ma qabanayna inay ka dhigan tahay waxa haddaba dadkan oo ahaa dad caadi oo reer Jabuuti oo xukun weligood ku horjeesan oo mucaarad ahayn dhibaatada lagu sameeyey waxay ku tusaysaa mucaaradka qofkii wax diiday ee yiri war waxaas waa khaldan tahay isaga maxaa lagu sameeyey ayaa meesha nii soo baxaysa wasiir ayaa u xidhan maanta wasiirkii hore dhaqaalaha Jabuuti Cabdulkariim Aadan Sheekh Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle xukuumaddiisu ay ku eedeynayso in uu isdaba mariyey xoolo isdaba mariyey ayaa u xidhan maanta xoolo dadweyne ayuu isdaba mariyey arrintan markaad dhegaysatid waxaad fahmaysaa in horena aan u sheegnay Jabuuti hore baan dhiba ahayd Jabuuti la iskuma xidho waxbuu xaday waa la isku sii dalacsiiyaa maanta tii oo cad oo awalkii horeete hadal ayay ahayd ambooleyte xog cad oo maaragtay meesha taalla oo la dhaafi karin lama soo dhigin beed awalkii horeete sidaa bay tahay baa lagu oran jiray ku tiri ku teenne baa la yidhaahdaa markaas laakiinse maanta waxa taalla dad caadiya oo loo cuskanayn mucaarad bay ahaayeen inay hayaan xog caddaynaysa sida isdabamarsiga Jabuuti amba xoolaha dadweynaha la isdaba marinayo in dowladda Jabuuti ay ku dhisan tahay waxaan ku waxa iga maqan jeegaasi waa ka Trump iyo qadaday facture ka baa bixiyay keenan lacagta inta la baan maqan xaqii ku maqanta
waxay igu jawaabtay wasiiradiisa hablahaygu tuugiin maaha way hablahaygu tuugiin maaha kabarkan iga dambeeya waa kabar ma dalaya way kabarkan iga dambeeya ayaa aamin qadaadiicna soo sii way kameen waxaan ku yiri aamin qadaadiic kabarkan ma siine waxaa soo dhan anigana waxba iga migin hadda adigu ogtiide aniga faqt waxay qusayo factoorkii iyo jaabiyoos yeesha ilaan anigoodi in wasiirada kuwa ugu maaragtay ugu waaweyn sida cadaalad oo kaleeti in ay aaminsan yihiin in Djibouti qof aan wax cunin uu ku noolaan karin oo la ogolayn inuu mas'uuliyad ka qaban karo waxa soo baxaysa in dadka mas'uul ka haya Djibouti ay yihiin dad ogol ambooleyta ku dhaqma habkan xoolays daba marista inay ku dhaqmaan waxa ka soo baxaysa in wasaaradani ay tahay ayna ahayn oo kaliya meesha ay waxani ay ka dhacaan amba falalkani ay ka dhacaan inay wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka oo kaliya inaynan ahayn wasaaraddan xogta aan ka soo ururinay ambooleyta waraysyada amba wararkana nooga keenay ayaa ah inay horta wasaarad dhammaystiran aanan ahayn oo waxyaabo badani ilaa haddada ay ka maqan yihiin hase ahaato waxaa soo baxaysa habkani inuu yahay hab ay u dhaqmaan wasaaradaha Djibouti oo dhan ayaa ka soo baxday waxaa soo baxday in qasnadayaal ay yaalaan xafiisyada wasaaradaha oo halkaas lacagaha lagu kala weydaarsado amba lagu kala qaato amba lagu kala boobo waxa soo baxaysa in xafiisyada amba hay'adaha adduunyada in mashruuciyo beena in loo tibiyo oo lacag lagaga cuno waxa soo baxaysa wixii dawladda ambooleyte xafiisyo loogu talagalay in la kala boobayo ma aha ani ahaan wariyaha LVD ima ahayn tani tii ugu horeyseen arkay waayo anigayga inila hadlay Djibouti waxaan ku soo arkay ay ka mid tahay in laga kala qaado amba laga kala bedelo amba loo kala bedelo mashruuciyo la kala bedelo lacagahoodii taasoo la siinayo qofkii wasiir ambooleyte nin mas'uula uu wato wuxuuna xaq u lahayn la siiyo kii kaleete ee cidi ay wadanne cidi ay ka dambeynne isagu qof caadi reer Djibouti ahna isaga wuxuu xaq u leeyahay laga qaado taas ana u joogay oo ayaanta qiyaamaha ilaahay i weydiin doonaa on garanayaane inaan u joogay taas wixii aan ka qaban karayeen aan ka qabtay on halkeedii ku ceshay taane ma aha mid aan maaragtay walaalaha maanta dhibaatada lagu sameeyay ay ii sheegayaan ma aha aniga u joogay anaa arkay anaa xal u doondoonay anaana xalkii u helay waana garanayaa sidii wax loo kala bedelay waxaad halkaa ka baranaysiin waa maxay ta aniga oo muddo yar Djibouti joogay aan arkay walaalahani waxay arkeen labalaabkeed bay arkeen waxay uga soo baxsadeen maanta ay waddankoodii dibadda uga joogaan ay tahay in waayadii horeete waxa dadka lagu dilayay amba lagu qabsanayay markuu qofkaasi yiraahdo war waxa sameynina waxaas waa khalad markuu yiraahdo xoolaha dadweynaha qaadanaysiin waa khalad markay noqoto markuu yiraahdo ayaa la qabsanayay maanta walaalahan waxa lagu haystaa maxaad u cuni weydeen waxa lagu dilayay ma aha iyagu dabadda may soo bixin oo may oran wardaaya may oran kamay hadlin xoolo dadweyne oo la isdaba maranayo
iyaga waxaa lagu dilayay waxa weeyaan xaaraantaas aan cunayno nala cun haddii kalena ku dilaynaa waa tan wax la isku haysto maanta halka la yimiday waa halkan أنا شقدا هاي ما قدر وها هاي ما قدر شقدا اللي فرح نقول ولا جرا قاش بفرح نقول ولا جرا شقدا وحوها ما شقدا يقول قرني بهرتو اوكي وانا قاضي وانا لبحي لعلاقتي وانا استعمالي وقبري وانا لا تجي انه وانا قصارتي افار بي وحيستين ma cunaysaa xaaraan oo aakhiro lagu weydiin doono madaxweyne Ismaaciil Margel afkiisa ayuu ka yiri waxaad dadaminaysaani waa naar buu isaga idil wuxuu dadaminayaa waa naar weyn kuwa la shaqeeyo oo dhan waxay dadaminayaan waa naar dadka haddii ay ku haystaan maxaad u cuni weyday xaaraan maxaad noola cuni weyday oo lagu dilayo oo gacan loogu geysanayo maxaad noola cuni weyday xaaraan halka ay Djibouti maanta joogto waa taas weeyaan iyaga ayaa inaga dirgi doona sida ay wax u jiraan waxa aan isku eegnay anagu wariyahan inaan la xiriirno dadkii eedo ay ku socotay markaan xogtoodii iyo waxa iyagu noo sheegeen markaan aragnay waxaan isku daynay inaan la xiriirno waqti ayaan qaadanay waayo waqti ayay u baahan tahay ma aha anagu nagama aha inaan lagu heeso sida ay saabay Djibouti ka jirta ma xogtu waxa ay tahay inaan keenno ayaan naga sugayaa wariyahan taasna waan isku taxallujinay waxaan isku eegnay inaan la xiriirno telefoon oo dhan waan ugu goynayay markaan naga qabto waan ugu goynayay markaan u sheeganay cid aan nahay iyo waxaan doonayno waxaan isku eegnay in aan markaan iyagii warka weynay inaan warqa aan u qorno haddaba markaan telefoonka socon waayay warqa maaragtay meelalina aan qorno taane haba yaraatee wax jawaaba kama hayo haddaba waxaan isku eegnay annagoo xogtii oo dhan hayno waraysigoodii hayna inaan doonno dad kaleeto oo markhaati gali kara arrintan waayo arrintan xoog ayay weyntahay waxay kuu tilmaamaysaa sida ay musuqmaasuqa iyo isdabamarista xoolaha dadweynuhu ay u tahay wax dowladda Djibouti ay ku dhaqanto oo wax kaleetaba ayna ku dhaqmin ay ku tusaysaa taasina biritoole nin wadaadu halkaas soo fadhiisanayo ku oran karaya amba qof mas'uul oo halkaas soo fadhiisan karayo ku oranaya waxaasi ma jirto amba la Djibouti sa uma dhaqanto ma jirto madaxweyne Ismaaciil Margel sida hadduu inii soo hor fadhiisanay aad garanaysiin haddee toole qofkaas oo reer Djibouti waxa uu ka sheekeynaya inay tahay wax wada beena waayo waxay ni cadaanaysa walaalahani waxay gaadheen meesha ugu sarreysa dawlad ay gaadheen oo ah madaxtooyada Djibouti madaxtooyadaas oo ugu jawaabtay in ay galowma siiso dadkii eedeynayeen ay waxaan ku eedeynayeen in galowma la siiyo oo mas'uul sare ay noqdaan dadkii eedo ku socota su'aasha kale la isweydiinaya ayaa ah sidee ku dhici kartaa qof eedaysana ah oo maxkamadii Djibouti ay eedaysay maaha maxkamadaha dibadda tii Djibouti gacanta ku hayeen qof ay eedaysay sidoo u dalici karaa mas'uul u sii fuuli karaa waa su'aal waruno maanta markaan aragna say isku dhex daadsan tahay amba warqadaha amba isku jawaabayaan ministerka duqa magaalada prefect sida ay isku haystaan markaad aragtid warun waxaad oranaysaa de meesha inay waxba oolin ayaad qof ka seeto oo reer Djibouti u soo baxay tan ayay markhaati u tahay ay in tusaysaa Djibouti dawlad baabi'eedu halka ay taagan tahay oonan ahayn qof mas'uul lagu tilmaami karo inuu Djibouti maanta uu malakahay haddii ay tahay qof wax bartay haddii ay tahay wadaad haddii ay tahay aabe maanta markhaati baati Djibouti ma joogto waar ka joogsada xoolaha dadweynaha cunina ma way ka tagtay Djibouti waxay joogtaa xaaraanta aan cunayno nala cun haddii kaleetana waan ku dilaynaa ayay joogtaa ninka wadaad in yar uu sheegan kara diin in yar uu sheegan kara miskiid in yar uu gali kara waayo dad muslimaan
maanta ku oranaya dawladda Djibouti ma taageersana been buu isku sheegay diintiisa waxba ka run ma wasiir kasto in soo hor fariisana waxaad garanaysiin markaad arrintan aad fahantiin waxa uu ka sheekaynayo oo dhan inayna waxba ka jirin arrintan hadduu alla yidhaahdo dhowr barnaamij ayaan inaga soo bandhigi doonaa hadduu alla yidhaahdo annagu hawshii wariyanimada sideeda hadduu alla yidhaahdo ayaan u gudanaynaa waxaan barnaamijkan aan u tabinaynaa oo kaleete waayo inta badan dawladda amba dadka meel kaleete ayaa la isku geeyaa ciddii dadteeda amba dadkooda u damqaday ee doonay inay wax ay xalliyaan sida ay dadkaasi ay salaan ay ugu dirayaan amba ay u bogaadinayaan ayaan anaguna u bogaadinaynaa tilmaan ayaan siinayaa oo ay noo sheegeen walaalahaasi afkooda ma qaadayno ay naga yidhaahdeen waayo dadka Djibouti ku dhaqan oo dhaw wuxuu yihiin amba dadka mas'uuliyiinta oo dhaw wuxuu yihiin ma oran karay laakiinse waxaan tilmaamayay in xukunka Djibouti uu ku dhisan yahay musuqmaasuq iyo isdabamarin xoolo dadweyne waayo madaxa ugu sarreeyay marka uu sida u dhisan yahay wixii ka hooseeyo oo dhan nasta ay u dhisay laakiinse dadka isku dayay inay xalliyaan arrintaas iyagoo hawshooda ay tahay run ahaantii inay hawshan loo igmada inay tahay inay arrintan oo kale xalliyaan kuwii isku day oo bogaadinayna waxa kamid ah sida ay noo sheegeen dibiteega la yiraahdo Abdou Sikiye oo ay noo sheegeen waxyo kale waa lagu eedeyn karaa oo waxyo kale waan haynaa laakiin arrintaas sida ay dadkaas ay noogu tilmaameen afkooda anaguna qaadayn oo yiri hawshiisa sida uu u gali karayay ay u galay nikaasi way bogaadiyeen anaguna on bogaadinayna waayo qof dadkiisa u damqaday ama dadkiisa doonay inuu xalliyo oo hawshii loo igmaday inuu sameeyo ku dhaqaaqay waa bogaadin waxaan ka xunna kuwa hawshii loo igmaday hoos marinaya ambooleyte ka gaabsanaya iyaga oo ka cabsoonaya sida mas'uulkiisu uu la hadli doono ambooleyte telefoon loola soo hadli doono iyagoo ka cabsoonayo arrintaa ma galayo wixii loo igmaday kule ma galayo waa nasiib daro in mediateerka Djibouti uu wixii loo igmaday uu ka soo bixi waayo oo ka aamuso oo wuxuu iska arkayo yiraahdo arrintan madaxweynaha ma horgeyn karo ma oran karo dawladda Djibouti dawladdaadu amba xukuumaddaadu waa musuqmaasuq ay ku dhisantahay waana runtii waana taala maaha waxaad kelida aad sameynaysid waxa weeyin waxaad aragtay waad arkaysaa oo ku hor taala waa inaad u geysid sharaftaada ay ku dhin waxa weey dadka reer Djibouti insi iyo sharaf baad leedahay insiga iyo sharaftaas adoo iska qaada maahine cid kale kaama qaadi karto inniga ayaa iska qaaday anigu way soo martay in laga yiraahdo anoonan waxba haysan anoo maaragtay u dhagan nuglaan karayay in laga yiraahdo saas samee on diiday way soo martay on dadkii aan la hortageen aan arkay inay ayna imarin karin oo iyagii arrintii sidii aan ugu dhigay amba xalkii aan u bandhigay ay sameeyeen taasina waxay ku tusaysaa qofku isaga ayaa iska qaada insiga iyo sharafta isaga iska qaada qofkan kale waxba kaama qaadi karo wax kasta la yiri kii iga sareeyay markaas waxa la wuxuu afkiisa uu ka qarsaday ma jirin hoos indhaha u dhig sida samee wax kasta uu yiri laakiinse wixii oo dhan waxaan ku burinay waxaan ku baabi'iyay oo adkaysigii aan sameeyay ayaa wixii oo dhan baabi'isay isaga markaan dariiqa saa u sii soconay wuxuu iga lahaa oo dhan markaan soo noqonaynay anigu wuxuu iga lahaa indhaha hoos u dhig markaan dariiqa saa u sii soconay mas'uulka aan u tageynay markaan laakiinse saa uga soo noqonaynay isaga ayaa indhaha hoos u dhigayay waayo wixii meesha ka dhacay ayuu arkayay
marka waxa weyn ciisigiina iyo sharaftiina ha iska qaadina dadka reer Jabuuti qof mas'uulana madaxiina hoos ha u dhigina markaad runta ku joogtid runtaada sheeg sharaftaada weeyaan arrintaas waa nigu soo noqon doonaa dadka reer Jabuuti hadday doonayaan inaan arrintaa aan uga warramo diyaar ayaan u ah wixii waaga aan maaragtay dhowrkii bilood ee Jabuuti ka shaqeeyay wixii ka dhacay iyo wixii isaameeyay aniga maantada waan ku soo noqon doonaa hadduu alla yidhaahdo laakiinse maanta arrintu aniga ima joogto waxay joogtaa walaalo aan waxba galabsan ayay joogtaa oo lagu haysto oo kaliyaati xaraan cun haddii kale waan ku dili halkaas ayaan joognaa barnaamijka intiisa kaleeta hadduu alla yidhaahdo ayaad kaga dharagi doonteen aad ku fahmi doontaanne halka aan joogno dhibaatadu inta ay la eg tahay iyo haddii toole inaad indhaha aad ka qaban kareen wadaad sheego mas'uul sheego oday dhaqameed sheego indhahaaga hoos haddaad u dhigtid adaa naarisgeeyey adiga ayaa akhirays maaragtay isweysiiyey cid ku weysiisay ma jirto cid sharaftaada qaaday ma jirta adiga ayaa hoos isku dhigay sharaftaada hoos u dhigay intaas ayaan kaga baxayaa maanta barnaamijka hordhaca aan ugu talagalnay barnaamijka taxana aan ka dhigi doono hadduu alla yidhaahdo oon inaga warrami doono sida ay waxu jiraan ambooleyte dhibta walaalahaas loo geystay annagoo xagga kaleetane ina tusi doona xogtii kaleete soo ururnay annagu idaacad ahaan iyoleyte waraysiyadii kaleen ka qaadnay dadkii aan iyaga markhaati ugu doodan annagoo garanayna waxa ay soo ururiyeen ambooleyte dhibaatada ku dhacday inay saxsan tahay aan garanayno haddana wariyahaan aawadeed aan u doonnay inaan u soo helo ayaa markhaati u furaya oo ayaantaa ilaahay joojiyey haddii ay jiraan weliba aan sii biirsanayno dad kaleete oo weli arrintaas aanan ka hadlin oo doonaya inay madaxooga iyo maskaxdooda iyo sharaftooda iyo cisigooda inay soo ceshadaan doonaya idaacadda codka Jabuuti way nii furan tahay waad ka soo hadli kartiin waad nala soo xiriiri kartiin waxaad noo soo dhigi kartiin cod halkan ayaan nii soo dhigi doonaa meelaha aad nagula soo xiriireysaan barnaamijka waa barnaamij taxana ah waanan ka dabageyn doonaa ha uga cabsoonina barnaamijkeena codkiina ambooleyte marka ay dhammaataba barnaamij kaleeta ayaan ka samaynaynaa oon kaga sii daynayno sida aad uga soo qayb gasheen ambooleyte aad maaragtay arrintaas aad uga farceliseen waayo waa arrin fool xun waa arrin samcada Jabuuti adduunyada kolkii horeetaba samcadu xoog ayay u yareed laakiinse sii dhaawici doonta barnaamijkii intaas ayaan caawa inagu soo gabagabeyn waxa aan kaga bixiyaa annagoo nile barnaamijkan barnaamij lamid ah hadduu alla yidhaahdo waqtiyada soo socda ayaad kala socon doontaan idaacadda codka Jabuuti waxaan leenahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.